warbixinta safarka wafdiga waa iska kaftano waxa la nin bada saabka aan jiray Burco oo reer Burco u yaqaaneen oo reer Hargeysa ahaa oo Afgaab la yiraahdo ay Burco ma ila socotaan dabeedna ay leedahay way waanu ka horreynaa marka qolooyinka ka xun in Soomaaliland horu socoto ama reer Soomaaliland ha noqdaan ama reer Soomaaliland ay noqon waa la shacabka wadi ka horreeya wafdi balaaran ayaan ku baxnay halkan oo xubnaha farwasiir iyo la taliyaha dhaqaalaha uu ka mid yahay waxaan ku baxnay safar martiqaad rasmi ah oo ka helay dawladda Qatar waxaanu safarkay muddadii aan joognay dalka waxay 28kii ilaa 2 bisha safarkan oo qayb ka ahaa istiraatiijiyadda xukuumadda wadajir iyo waxqabad ee ku salaysan xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed kobcinta iskaashiga dhaqaale iyo ka amni ballaarinta saameynta ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ku leedahay dalalka khariijka Carabta intii lagu jiray safarka waxay yeesheen kulamo muhiim ah oo heerkoodu sareeyay kuwaasoo diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal kulamada waxaa ka mid ah kulanka ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheekh Mohammed bin Abdirrahman Al-Thani waxaa ka mid ah wasiiru dawlaha arrimaha dibadda Dr. Mohammed bin Abdiaziz Al-Khulayfi oo ninkii soo heshiisiyay Makka Congo iyo Rwanda wasiiru dawlaha ganacsiga dibadda Dr. Ahmed Al-Said مسؤولين كترسن أمنية قدر مسؤولين كترسن صندوق هرمارينتا الدلك قدر هيدا قدر تشاريتي وهكذا أنا لكم أمي شاريد سير سوماليلاند الدلك قدر كلما قارقارو فربضان وأنا أضياشة يجن عصتها يا غويهك يا هالدارك لكل عمي شريدة قدر وشريدة وداوين شريدة ضلك قيمي يا شنبيجا وشريدة يا ضو أمانين مسؤولين تي لبسوا دوي مدار وعنونا وشريدة وفي عن مركز شريدة سير مع يا ماموس وأنا كل هذا هاي وأنا شريدة والرئيسي شريدة يا شنبيجا شو ضلك قدر marka soo koobo safarka iyo ujeedooyinkiisa ama muhiimadiisa mid waxa aynu abuurno xiriir diblomaasiyadeed Qatar waxay noo muujisay doonis buuxda oo lagu dhisayo xiriir rasmi ah oo joogto ah ay la yeelato Jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo loo marayo hanaan diblomaasiyadeed oo ku salaysan isqadarin iyo wada shaqeyn arrinta labaad ee muhiimadda aan u tagnay waxay ahayd inaynu ka helno ama xoojino maalgashi aynu ka helno iyo ganacsigaba waxay si cad ugu sharaxeen fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliland gaar ahaan dhismayaasha kaabayaasha dhaqaalaha beeraha tamarta iyo xoolaha iyo macdanta dhinaca qadarna waxaa muujiyeen xiisaha ay u qabaan in laga faa'iideysto fursadahaas amniga iyo deganaanshaha maadaama ay ku noolno gobol muhiim ah iyo meel xasaasi ah iskaashiga amni oo labada geesood ah ayaa la dadalgelin doonaa ka hortagga khataraha geeska ka jira sida tahriibta burcadbadeedda argagixisada iyo in la dhiso xiriir toos ah oo u dhaxeeya hay'adaha amniga Somaliland iyo kuwa dawladda Qatar
iskaashi diimeed dhaqan iyo mid khayriya hay-adaha islaamiga iyo qatar iyo kuwa charity-guba waxay muujiyeen dareenkooda dhismaha bulshada iyo taakulaynta dadka danyarta ah sidoo kale dhiirigelinta qiyamka islaamiga ah oo ku dhisan nabad iyo xasilooni wada noolaanshaha iyo wacyigelinta guud ee bulshada guud ahaan wuxuu ahaa mid miro dhal ah isla markaana furay albaabo cusub oo wada shaqayn saaxiibtinimo iyo is-aamin ku dhisan wuxuu xoojinayaa ballanqaadkii Somaliland ee ahaa inay kaalin wax ku ool ah ka ciyaarto xasiloonida gobolka iyo horumarinta bulshada xukuumaddu waxay diyaarin doontaa wax kasta oo farsamo ah si ay u sii dardargeliso qodobada aan halkaa ku sheegay lana hubiyo in la soo hooyo faa'iidooyin la taaban karo oo wax ku ool ah oo dadkuna dareemi karaan waxaan isleeyahay albaab inaga xidhnaa 34 sannadood ayaanu soo fufay waxaana ka dhalan doonaa iskaashi ballaaran iyo mid oo xagga waxtarka iyo xagga iskaashiga iyo xagga xiriirka diblomaasiyadda iyo amniga haddii la yiraahdo